Soomaalida ku nool wadanka Mareykanka ayaa gaaray guul taariikhi ah kadib markii Cabdi Warsame oo Soomaali ah uu ku guuleystay inuu noqdo madaxa xaafadda lixaad ee magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka. Cabdi Warsame ayaa jagadaasi kula loolamay oo kaga guuleystay ninkii xafiiskaasi hayay 12 sanadood ee ugu dambeeyay Robert Lilgram iyo waliba dhalinyaro kale oo Soomaali ah. Cabdi Warsame ayaa guushiisa waxaa ka qaatay qayb lixaad lana ka ciyaaray Soomaalida ku dhaqan wadanka Mareykanka gaar ahaan kuwa ku nool Minnesota. Axmed Xasan oo isna wiil kale oo Soomaaliyeed ah ayaa isna doorashooyin noocan oo kale ah gobolkiisa isna guul ka gaaray. Waxa ay noqonayaan guulahani kuwii ugu sareeyay ee heerkooda ah oo ay dalkaasi Mareykanka ay ka gaaraan qoomiyad ka soo jeeda gobolka Bariga Afrika. markaan hawshan bilownay waxaana la ku yiri ma samay kartiin nin oday oo maartay dalkan u dhashay ku dhashay kama reey kartiin 15 sano meesha hayay ma la tartami kartiin waxay tan fariin u tahay guuldaradii 21 sano haysatay haddii maskaxdeen aan isticmaalno ilaahayna tala aasaarno wax kasta iyo meel kasta waa gaari karnaa marka hawshan ma ahan Cabdi Warsame baa raayay waxa raysay shacab weynaha East Africaanka ah iyo dadka degan degmada lixaad ee magaalada Minneapolis waa mahadsantihiin thank you waxay noo tahay wax aad u weyn in la doorto qof ka soo jeeda East Africa haddana ka soo jeeda Soomaaliya inuu ka noqdo golaha deegaanka xubin ka mid ah golaha deegaankuna waa golaha go'aanka ka gaara arrimaha bulshada sida guryaha iyo waxbarashada iyo wadooyinka iyo waxa la midka السلام عليكم هرتا وإذا وذا السلام يا فرحة أن مرنا بالكوبي كان أيان فرحسنها عاور رنتي هدي أن حاجة أقول له حدا جنا عصتها الصوماليات ود بدأ تشوجا يكون جودها تشوجا بس بعض وانا أحسن أي سينين قوة تلفون صادر يود بدأ تشوجا يكون جودها تشوجا وما رتجع سيني أي أشرة رنتي وحنلاقي عبدي وويل ألف فرعون هاي وانا أحسن أبو وانا أحسن دلين كان دمبيان هدي برشة الصومالية الفيري أنا كذا شيء قوس كستو الصومالية وحنا الله الصومالي نكى سكين الهوية صومالية ما رتها قولي ستو صومالنا وحي كتشني كرتا وحي يغلي مادان درانك أقول سيدي يا عاوي وأنا قاعد بقيمة بداية هاي ما حد كفر حسن تاعي كفر حسن هاي عاوي جوش عن سوه إنه إلى هاي نسيي أنا أنودا من هذا يجني بان كفر حسن هاي أنا نحل ساحن عاوي أنا قبل يقول عاي جوشي أن جارني أن رادينا يعني عادي عاد كفر حسن ولي قف صومالي مو عادي عبد ورسمة كور وما حضين عبد ورسمان وإستاجي صدق بلاد بنتاجنين بالكسة أو أي دعي سبوان تاجنين وأنا كم هذين يا بقول كيف بقول سيدا شرفت لي أو أنا هلا إلهينا نوسي يجدوا كانوا ما دحسنتي ما سومالي كنا وحشون ويري عبد ورسمة وعاوي كورمية سيدا وأركو عاوي فرحة إيرين تكموقته aad baad u mahadsantahay caawil alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh maxaa la dhahaa waana maalin weyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taageerayaasheenna iyo dhalinyarada volunteer garaysay oo aad iyo aad u fara badnaa ilaa 200 oo qof baa noo volunteer garaysay maantay kuwaasaana maxaa la suurta geliyay inaan guushaan aan gaarno marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayaka rabaa inaan u mahad celiyo waxaan rabaa also inaan u mahad celiyo shacab weynaha degmada lixaad East Africaanka Soomaalida Oromada iyo dadka kaleba oo noo codeeyay waayo codkeena hadeer waa 2-1 sida dhahan labadii halkii cod buu helayba laba helnay marka alxamdulillah Cabdi dareenkaagu sidee yahay caawo waxa kugu heerarsan dadweynihii dhammaan kala qayb galay doorashada u soo dadaalay sidee dareenkaagu yahay caawo dareenkaygu waa fiican yahay alxamdulillah waxaana joogaa meesha adduunku ugu jeclahay oo sida Riverside waxaana la joogaa dadkayga iyo ehelkayga iyo taageerayaashayda marka dareenkaygu maanta waa maalin aad u weyn asxaabtaydii iyo dadkayga baa ila joogo iyo dadkii maalin kasta ay taageersanaa oo garab taagnaa oo aaminsanaa inaan guuleysanayno marka ina ayaka la qaybsanayo farxadan waa wax weyn waana mahadsantahay maxaad u sheegaysaa dadka Soomaali channel ka daawanaya caalamka waxaan u sheegayaa waa mahadsan yihiin waxaana rabaa inaan fariin u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waayo waxaana loo sheegi jiray qofka Soomaaliya inuu soo guuleysan karin
inuusan riyo karin inuusan meel gaari karin tanna waxay ku tusaysaa haddii Cabdi Warsame oo refugee ah oo xaafad sida Riverside degan oo lacag badan aan haysan inuu ka guulaysan karo nin 12 sano xil hayay in dhalinyarada Soomaalida waxay rabaan ay noqon karaan inay dadaal mooye wax kale hor taagnayn aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ku leenahay hambalyo haddaan nahay asxaabta Somali Channel waa mahadsantahay Caawil iyo Siyaad iyo Somali Channel-ki SMT iyo Ismaaciiliyo waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay oo na taageeray iyo nin la dhaho Dulyadayn iyo rag kale badan marka waxaan rabaa inaan si gaar ah ayakan u mahad celiyo waa aad bay u mahadsan yihiin